سائلكم وحول الشيخ وحن قاتا دول لعبه وحن أوقات حنونك صنكرتا هدي أنيقا وأن ولي عبين ليقو أدمه محان سمايا ودوه بيلا وقصه هدي لقو أدمه طبعا ما استعمال كرتين لأن الصنك أقوى شوية هدي أد مركز صومي كرتو داودا لأنتت صنك أقوى إنا دوضته تادن خطر قلينين صنك أنا أدوضن كرتو داودا لأنتت صنك أدوضن يوشبين ميس حديث داوداس كتجي ديدو وكين أما حنون كوكو كرده أما عافيمات دي بدعة أما خطر بينات قشو لغا بقيو مركز داودا دواد استعمالي مالين كان سيدا صادقو أفرناني دي منوات كقلين إن شاء الله تعالى وهدي أي لغا مارمان نقطة استعمال كود داودا استعمال كيدو ودن لأنت تسومي كرينيوا مركز واد استعمالي وادنا أفوري دي منوات كقلين إن شاء الله تعالى هدي عاد لأنت تسومي كرتنا صون كدمنا هبينك مركا أفرك اللي قاعد استعمال داود هذا إن شاء الله تعالى والله أعلم. سائلكم وحول الشيخ وحا هرئي قد تجي رمضان بدن ودمر وايه قوادن وحا هرئي قد تجي رمضان بدن وأنا نسومين من حصوصنا يتراد هذا الشيخ محا بنان. وحواجب إن اسكت ضيضه إن خصوصاً كرتو مالمي كاتجي أنت يا هاين مسكحة كشقيسي ددال بيحي إن خصوصاً كرتو إسكودي أنت ملها وبطو أياد مركها قلينا يسايو سوسو ميس كدبنا واحد بتصنع يسا صون كالسنة دا معنى إن كيس دي وحي meesha kaaga tagaan ama soonkaaga wax ka khaldamaan sida nabiga ka sugan salawaatu rabbi wa salaam alayhi cibaadaadka waajibka ah haday wax isdhimaan ama khalal galo aakhiro ilaahi fadligiisa wuxuu ku kabayaa cibaadaadka sunnada ah marka intaad xusuusan karto soon kadibna soonka sunnada badso wallahu a'lam. sheekh waxaa jira dad ku doodaya qofku hadii uu rabo ma soomayo hadii uu cid uu raashin siiyo heli karo waxayna leeyihiin soonku khasab ma aha ee waa qofkii doona iyagoo daliishanaya aayada suuratul baqara ku jirta ee dadka soonku ku culus yahay u fasaxaya inay raashin bixiyaan marka arrinkaasi diintu maxay ka qabtaa diintu waxay ka qabtaa dadka fikir kaas faafinaya hadayna dad islaamnimada ku cusub ahayn waa dad sanaadiqa ah oo diinta iyo dadkeeda khatar ku ah wayaan damana aad bay u badan tahay Soomaali sanaadiqa ah oo diin laawayaal ah oo shubahaad fara badan furaya oo diinta asalkeedii iyo ahkaamteedii baduulaan ku ah iskuna dayaya inay quraanka iyo ahadiista wax daliishanaya iska dhigaan hadaynu mas'alada dib ugu noqono waa mas'alada la xiriida soonka iyo marxaladaha jidayntiisa markii soonka la jidaynayay la waajibinayay marxaladuu maray wuxuu ka mid yahay ahkaamta sida tadriijiga ah loo jideeyay buu ka mid yahay markii ugu horeysay soonka la waajibiyay ayaa waxaa furnayd mas'alada la yiraahdo at-takhyir bayna as-siyam aw daf'i fidyatin khiyaar baa la siiyay ama soon ama hadii kale miskiin qoodi maalinkiiba khiyaar baad leedahay taawamida marxalada ay ka hadlayso way aayada qaybteeda alla leeyahay tabaaraka wa taala wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum
marxalada khiyaar ku jiray oo ama soon ama raashin bixi khiyaar ku ahaa marxalada lafteeda waxaa fadli badnayd soonka fadli badnaa oo aayada tilmaamayso wa an tasuumu khayrun lakum marxalada waxaa ka dambeysay soonka ramadaan baa la waajibiyay laakiin waxaa jirtay ruuxa maalintii markuu soomo oo uu afuro haddii uu seexdo intuusan wax cunin oo hurda la tagto xilliga afurka la gaadhay wuu seexday hurda la tagtay cunto looma ogolaan jira waa inaad habeenkaas maalinka dambe ku xidho waay xadiidka saxiixa sidaa ku yimido nin saxaabada ka mid oo qays ibnu sirma la yidhaah ansaari ahaa ayaa markuu soomay oo afurkii yimid buxaaskiisii yidhi naa wax lagu afuro ma haysaa markaasay tihi waxba ma haye laakiin waxbaan soo raaraadin intay wax ku maqnayd bayba hurda la tagtayba nin daalan buu ahaa maanta oo dhan soo rafaadayo soo shaqaynaya isagoo hurday u timid markaasay waxay tihi hooggiisii war muu seexday miya khalaas cuntadii ay keentay uma bannaano marka habeenkii oo dhan buu ugu jiiday maalintii dambu haddana soomay marka maalinta badhantankeeda la joogu suuxay marka uu dhacay markaasaa waxaa soo degtay ruksada ah in habeenkii oo dhan la cuni karo ama hurd ama seexo ama ha seexanin habeen oo dhan in la cuni karo ruksadii ka dambaysay wey marka marxaladan ugu dambaysa marka ee uu ku sugnaaday jidaynta soonka iyo tashriiciisu waa marxaladaas ee ay tilmaamayso aayadda dambe oo soonka cid kasta oo muslima oo qaangaadhay oo muqiimoon musaafir ahayn oo xanuun u diidaya uusan jirin waa inuu bisha soomo kii kalena waa inuu qalleeyo khiyaarkii waa laf joojiyey marka marxaladaa dambe waa marxalada marka ay ka hadlayso aayadda aan hadda akhriyayna midda ka dambayso alla uu yidhi tabaaraka wa tacaala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu midkiinii bisha soo gaadha ha soomo khiyaarkii cunto bixinta waa la joojiyey marka xadiidka saxiixulbukhaari baa macnaha tilmaamaya salamatu ibnu akaw saxaabiga la yidhaahdo ayaa nabiga ka warinaya sal alla alay wasalam wuxuu leeyahay markay soo degtay aayadda wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin waa aayaddii hore ee khiyaarka bixinaysay markay soo degtay kaana man araada an yuftira wayaftadiya ciddii doonta way afuri jirtay kadibna fidyay bixin jirtay xataa nasalat alaayatu alatii bacdaha ilaa ay soo degtay aayadda ka dambaysa oo ah ya shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasumhu ilaa aayaddaasi ay soo degtay buuri fanasakhathaa aayaddaa dambe ayaa tii hore bedashay marka ayib aayaddii khiyaarka waa la bedelay marka waxaa ka dambaysay mid soonka keliya laasimisay mar hadday arrintu sidaas tahay culimmada muslimiinta biajmacihim biduuni khilaaf waxay isku waafaqeen aayaddaa dambe markay soo degtay ruuxa muslimkaa soon unbaa laga rabaa fidya waxay ku soo hadhay oo ku camal fali kara aayadda ah wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin waxaa ku camal fali kara dadkii soonka kari waayey sida cabdillahi bin cabbaas ka sugan oo yacni odayga soonka kari waayey islaanta da'da ah dadkaas soonku xamili kari waayey ayaa khiyaarka fidyadu markaa u furan yahay ama ruuxa muslimka ah soon baa ilaahay ku laasimiyey marka marxalo la nasakhay oo la bedelay oo aayado ka dambeeyeen in la yidhaahdo ummadda loo keeno la yidhaahdo haddaad doontana soon haddaad doontana iska afuro raashin bixi ninka saa wax u daliishanayaa waa nin fariidada soonka duulaan ku ah ummadda inuu jahwereeriyana doonaya dadka noocaas oo kalena inta badan waa dadka zanaadiqadoo diin la-aanta waa falsafadaha beentaana dadka u faafiyo si ay dadka diintooda dhaawac u geystaan waxaana ogahay koox Soomaali ah oo qaar ka mid ah Nairobi joogaan oo hadda barnaamijka ka shaqeeya salaadii bay tashwiish ku fureen oo waxay yiraahdeen
ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaadiinnu hadday munkarkii iyo xumaanta idinka reebi weyday waxbaba ha tukanine salaaddii iska daaye salaaddii dadka waa ka dulqaadeen soonkiina waa ka dulqaadeenoo waxay yidhaahdeen hama cunto bix ama haddaad rabto iska soon khiyaar baad leedahay salaaddii waa qaadeen soonkii waa qaadeen tawxiidkii iyo asalkii diinta waxay shaki bay geliyeen waa niman noocaasoo marka ilaahay ummadda ha ka qabto ha soo qabtee aafaysan waay in la iska jiray marka u baahan yahay shubhadanna waa filayaa inay iyaga ka socoto wallahu aclam sheekh gabadha uurka leh ee uu soonku ku culus yahay maqallaa laga rabaa marka ay dhasho mise cid kale inay afuriso ayaa u furan oo soonku waa uu ka dhacayaa dumarka uurka leh iyo kuwa nuujinaya waxaa u bannaan horta inay iska afuraan waxaana macnaha tilmaamaya xadiidka anas ibn maalikin ilkacbi abu daawud iyo keyrkii wariyeen oo nabigu yidhi sal alla alay wasalam alle wuxuu ka dejiyey soonka haweenta uurka leh iyo midda nuujinaysa way iska afuri karaan marka taa la islama diidana inay afuri karaan leanna ilmihii ayaa u baahan wuxuu quuto ama uurka ha ku jiro ama naas ha nuugayo hooyadii uurkeeda lagu jiray ama naaskeedii la nuugayayna nafaqay u baahan tahay oo la-aanteed way dhibaatooni shareecadannana qawaaciddeeda ay ku dhisan tahay waxa weeyaan ataysiir fududayn waay meeshii aday galo shareecadu waa fududaysaa way afurayaan marka ha afureena maxaa laga rabaa halkaasaa culimmadu marka isku khilaafayaan badankood culimmada jamaahiirtoodu say qabaan waxay leeyihiin waxaa laga rabaa qallaa laga rabaa waxayna uga qiyaas qaadanayaan ruuxa xanuunsanayay uga qiyaas qaadanayaan ee qur-aanku sheegay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar ruuxii xanuunsanayay soo qalleysoo lama dhihin tanina waa noocuun xanuunka u ege ha soo qallaysay dheheen qallaa laga rabaa bay u badan yihiin ayib haddii qallahaasi ay kari weydo oo uu qalluhu aad ugu bato oo ay xamili weydo marka waxaa jirta ra'yi cabdillaahi bni cabbaas iyo cabdillaahi bni cumar saxaabada qaar ka mida ka sugan alimaam isxaaq ibnu rahwiyana uu maray oo dhahaya raashiin bay bixinayaan waa fatwo markaasi midii soomi kari weyda oo ay ku bataan oo ay ku adkaato awooddeeda ay ka yacni wax weeyaan ka tanbadato markaa loo fatwoon karo waayo meel wax looga raadin karo waayo laakiin asalku wax weeye qallaa waajiba wallahu aclam sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay marka uu imaamku taraawiixda tujinayo kitaabka qur-aanka ma ka fiirsan karaa maya kama fiirsan karti laanna ma qur-aan baad baranaysa adiga ma arday qur-aan baranayaad ma saxsana waxaa la rabaa inaad dhegaysato qiraa'ada imaamka misxaf fiirfiiri laguma dhihin ee waxaa la yidhi waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu qur-aanka marka la akhrinayo dhegaysta oo u dheg raariciya insaadka waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo dhegaysiga kaa mashquulinaya inaad meesha ka saarto oo aad tarkiisiso attentionkaaga dareenkaaga dhan inaad isugu geyso dhegaysiga qiraa'ada xadiidkiina waa kii ahaa waidaa qara'a fa ansituu imaamku markuu akhrinayo dheg raariciya dhegaysta arrintaasi marka waxay kaa mashquulinaysaa dhegaysigay kaa mashquulinaysaa sheekh ibnu cuthaymiin calayhi raxmatullah wuxuu sheegay ilaa taqriiban 5 maxduur oo ku jirta arrintaa iyada 5 khalad baa ku jira buuli khaladka koobaad wuxuu yidhi ruuxa tukanaya salaada ku jira waxaa la rabaa inuu fiiriyo meeshuu ku sujuudahay sida culimmada badankood qabaan xadiiskuna ku tusay misxafka markaad fiirinayso wuxuu kaa hor istaagayaa ama kuu diidayaa meeshii lagu yidhi fiiri oo meeshaad ku sujuudaysay ma fiirinaysid meel kale rood fiirinaysa waa qodobka labaad wuxuu yidhi markaad misxafka haysato labadii gacmoodee laabta hal la saaro iyagana ha lays kor saara la yidhi
ayadana waad lumisay soo ma laana gacmihii mid baad misxaf ku haysataa ugu yaraan saas oo kala ta soo ma haddaadan labadiiba ku wada qabaninba marka gacmihii laysa saarayay sunnada ahaydna waad lumisay qodobka saddexaad wuxuu yidhi waxaa ku jira dhaqdhaqaaq fara badan oo loo baahnayn yaa musxafka kala fur haddana waraaqdan rog haddana tan rog maxaa looga baahan yahay midda afraad waxaa ku jirta buu yidhi ruuxa araggiisa inuu dhaqdhaqaaq fara badan sameeyo xarako kasta iyo xaraf kasta iyo safxo kasta iyo ilaa marka dambe yani uu ishalmaamaba saas daraaddeed culimmada qaarkoodba waxay yidhaahdaanba misxafka hadduu ka akhriyo ruuxu qur-aanka isagoo salaad ku jira salaadda waa ka buraysaa qaar baaba qaba culimmada maxduurka shanaad ee uu sheekhu sheegay waxa weeye ruuxa waxaa tegaya tadabburkii uu qur-aanka u fiirsan lahaa uu dhuuxi lahaa macnaha qiraa'ada uu la socon lahaa ayaa lumaya oo qur-aanka fiirintiisaasaa qaadanaysa yacni dareenkiisa iyo maskaxdiisa inta badan halkaasay la jirtaa ilaa marmarka qaarkood ishalmaamaba inuu salaad ku jiraya in kale arrintaasi marka waxay ka hor imaanaysaa nusuus fara badan bay ka hor imaanaysaa saas daraaddeed waxba loogama baahna inaad misxaf qaadato imaamka qiraa'adiisa dhegayso wuxuu leeyahay sheekhu hal xaalad baa la ogol yahay la ogolaan karaa in misxafka aad hayso waa haddii imaamka dadka tujinaya uusan xaafid ahayn qur-aanka xifdisan oo markaa ma'muumiinta nin ka mida inta gadaashiisa la istaajiyo la yidhaahdo misxafka u qabo oo toostoosi markuu gafaba u sax taasoo kale hadday tahay buu leeyahay xaajaa keentay buu leeyahay laakiin haddayna hawsha ahayn sida kale waa maya qiraa'ada imaamka dhagayso wax kalena ha ku mashquulin wallahu aclam saa'ilkan waxa uu leeyahay sheekh qof qaad gada haddii uu dad badan afuriyo ajar ma ka helayaa anigase qofkaas afurkiisa ma cuni karaa anoo og meesha uu xoolaha ka soo kasbaday waa laba su-aalood horta ajir ma ka helayaa dabcan waa haddii waxa uu sadaqaysanayo ay tahay wixii qaadka ka soo baxay marka horta isagu ajir ka heli maayo lianna xadiidka nebigu muxuu ah ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba ilaahay waa tayib waxaan tayib ahayna ma aqbalo xalaal waxaan ahayn ilaahay ma aqbalo xaaraan ilaahay ma aqbalo xoolo xaaraan ah xadiid kaloo kasii sariixsan baa jira oo kasii cad oo masalada ku cad waa xadiidka abu hurayra ka horan abu hurayra warinaya min xadiidii abu hurayra warinaya muslim baa soo saaray kan dambe isagana abu hurayra laga warinayaa oo nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waman jamaca maalan xaraaman uma tasadaqa bihi lam yakun lahu fiihi ajrun wa kana isruhu calayhi ruuxii xoolo xaaraama kulmiyo ururiya oo isu keena kadibna sadaqeeya ajir ka heli maayo dembigiisina xoolaha dembigooduna isaga korkiisa waa marka xoolo xaaraamoo la bixiyey ajir lagama helo waa qodob xadiidkaa dambe ibnu khusayme ibnu xibbaan baa soo saaray xaakim waana xadiid saxiixa qodobka labaad iyo su-aasha qaybteeda labaad oo ah aniga agtiisa ma ka afuri karaa anoo og inay xoolahani xaaraan yihiin jawaabtu wax weeyaan haddaad miskiin tahay ama faqiir tahay haa haddaadan miskiin ahaynna maya ha ka afurin agtiisa oo maxaad u kala qaaday oo ilaahayba sooma kala qaadin markii xoolaha agoonta laga hadlay faman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf waa agoonta xoolahoodii markii laga hadlay tanina waxa weeyaan xoolaha jidka xaaraantaa ku yimaada meesha masrifkooda sharcigee lagu bixiyaba waa masaalixda iyo danaha guud baa lagu bixiyaa xoolaha hadduu ninkaasi hadda ka toobad keeno ama isagoon toobadkeeninba uu yidhahdo waan bixinayaa sheekh xaggeen ku bixiyaa waxaan leenahay masaalixda caamka ha lagu bixiyo danaha guud ha lagu bixiyo danaha guudna waxaa ka mida masaakiinta iyo fuqaradaa ka mida
marka faqiirka iyo miskiinku xoolaha jidka xaaraanta ku yimid waa qaadan karaa waa ku afuri karaa waa intifaacsan karaa laakiin haddaadan faqiir ahayn qiil uma haysatid aad ku afurto xoolahan xaaraanta ma ku afurti kartid mana qaadan kartid wallahu a'lam sayladan waxay leedahay sheekh marka gabdhuhu cuntada diyaarinayaan ma dhadhamin karaan ama se macalaalin karaan iyagoo iska tufaya soonka horta waxba yeeli mayso mar haddaadan liqin biyo aad ku luqluqatay oo kale waa ood iska tuftay marka soonka waxba yeeli mayso haddii baahi timaadana wax karaaha kuma jirto siday culimadu u badan yihiin waa madhabka xanafiyada shaaficiyada xanaabilada madhabka agtooda ah sheekh islaam ibn taymiya alayhi rahmatullahi uu dooranayo wax karaaha kuma jirto haddii xaaja timaado xaajadu maxay noqon kartaa xaajadu waxay noqon kartaa gabadhu raashinkii bay karinaysaa raashinka inay testigareysay u baahanta sooma inay yani fiiriso raashinkani ma isu dheelitiran ama waxbaa ka maqan milixdii inay hubisay u baahantahay sooma baahi baa jirta markaasoo kale inay afka geliso oo dhadhamiso iska tufto xaaja jirta markaana karaaha kuma jirto wax dhiba kahasha kuma jirto saxaabadii iyo taabiciinta qaar kamid ay ka soo aroortay arintaasi inaysan wax dhiba lahayn cabdullaahi ibn cabbaas oo kale waxaa ka sugan inuu yidhi laa ba'sa an yatatacama alqidra aw ishay'a dheriga inuu ruuxu wax ka dhadhamiyo ama wuxuun uu dhadhamiyo isagoo sooman wax dhiba ma laha wakadalika xasan albasri mujaahid ibnu jabri oo taabiciintii ka mid ahaa a'imada madaahibtuna halkaasay qaar badan mareen marka haddii loo baahdo wax dhiba ma leh laakiin waa inay gabdhuhu ka taxadaraan inuusan raashinkaasi ku cararin oo uusan dhuunta gudbin markaa soonka halis buu gelinaya wallahu a'lam saa'ilkan sheekh wuxuu leeyahay xaaskayga ama waalidkayga soon lagu lahaa ma ka soomi karaa waad ka soomi kartaa cala saxiix xadiidka caaisha ku tusaya fi saxiix oo nabigu yidhi sal alla alayhi wasalam man maata wacalayhi siyaamun saama canhu waliyuhu ruuxii dhinta isagoo soon lagu leeyahay xigtadiisa ka soomaysa xigtadiisa ayaa ka soomaysa waana madhabka imaamu shaafici calayhi raxmatullah soonkaasi ama nadar ha noqdo ama soonkii waajibkii ramadaan ee asliga ha noqdo labadaba waa laga soomi karaa sida daahirka xadiiska ka muuqda imaamu shaaficina calayhi raxmatullah halkaasuu maray marka dhib male ka soon waad ka soomi kartaa wallahu aclam waa su-aal isugu jirta laba su-aalood waxa uu leeyahay saa'ilkan sheekh qofku haddii uu maalin ramadaan ah xaaskiisa u galmoodo iyo haddii uu maalin ramadaan ah zina ku dhaco ma isku waajibaad baa laga rabaa mise way kala badsanayaan ninka xaaskiisa u galmooda maalin ramadaanse haddii uusan awoodin waxyaabaha shareecadu ku waajibisay ma laga cafin karaa ma la cafin karaa iyadoo laga dhuxul qaadanayo ninkii arrinkaas sameeyey ee nabigeennu sala allahu calayh waali wasalama uu isagu wax ugu daray haweenaydayse iyadana mawaajibaadkaas baa laga rabaa mise ninka bes ayay ciqaab ku tahay horta waa saddex su-aalood laba saddex isa saaran waa marka sida yihiin aan u kala qaadno su-aasha hore oo ah ninka xaaskiisa u galmooday isagoo sooman maalin ramadaan iyo ninka isagoo maalin ramadaan isagoo sooman zinaystay ma isku waajibaad baa xagga kafaarada jawaabtu waxa weeye xagga kafaarada waa isku mid oo mid walba waxaa laga rabaa inuu qoor xoreeyo addoon inuu xoreeyo hadday suroobi weydo inuu 2 bilood oo isku xigta soomo ramadaan kadib haddii uu kari waayo inuu quudiyo 60 miskiin waxaa kaloo ka dhaxaysa inay soo qalleeyaan maalinkay jabiyeen waxaa kaloo ka dhaxayso labadaba loo baahan yahay dembi bay galeen inay toobad keenaan hal meel bay marka ku kala tegayaan dembigay galeen ee la rabo inay ka toobad keenaan baa kala culus mid way ka midaysan yihiin soonkii ramadaan oo ay galmo ku jabiyeen dembigeeda waa isaga mid soo ma laakiin midina waa zinaystay
oo waxa inta u dheer dambigii zinada kanina inta lama socoto sooma sidaas daraadeed kani waa zaani oo nusuustii zinada ku soo aroortay iyo aadaamteedii iyo dambigeedii iyo waxeedii baa saaran inta kalena ninkan uu la mid yahay xagga kafaarada se isku mid waaye hal kafaaray wada gudanaya qaybta labaad ee su'aasha waxa weeyaan ninkii kafaarada lagu yeeshay haddii uu kari waayo kafaaradu soo saddex ma ahayn saddex kala dambaysay ah waxaa la yidhi qoor xore ma kari karo 2 bilood oo isku xigta soon ma kari karo 60 miskiin qoodi ma kari karo waxba ma haysto intaaba markuu kari waayo ma faraha laga qaadayaa mise waa kafaaradii waxay noqonaysaa dayn korka ka saaran oo xilligu awood helo inuu guda laga rabo labadaas ay culimadu isugu khilaafeen qaar waxay yiraahdeen kafaaradu ka dhici mayse waxay noqoni dayn qoorta ka saaran oo la rabo xilligu xoolo helo inuu guto waana madhabka jumhuur culimadu ay u badan yihiinoo xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaaficiyada fil adhari indahum iyo riwaaya can imaam ahmed saasay u badan yihiin in ay dayn tahay lagu leeyahay qowlka labaadi waxa weeyaan oo culimadu masalada ka qabaan marba hadduu kari waayo xilliga isaga ah kafaaradii meesha way ka baxaysaa sida soonku meesha uga baxay bay quudinta iyo cuntadiina iyaduna meesha ka baxaysaa waxba laguma lahaba laana uu tabar buu waay عاجز تبروايو أود واينا شرعه ما كلفته دليلنا وحاء النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه ننكي حديثك بكوي مذا أرنتني كرد علي مركو كري واي وحكست مركو كري واي النبي صلى الله عليه وسلم السجاب عاوييبا ووحي أهيد مركي اللي يجري مركي الصون اللي يجري ما بكري كرو يجري لا بلاد الصون ما كري كرو وايه واحد سميسا محو هاي 60 مسكين قودي ومحابن هيستابل او ku qudiya duu meeshii waxoogaa joogay nabiga waxa loo keenay dambiil timir ku jirto markaasuu yiri waraaway ninkii hadda su'aashay weydiinay waa ay kan rasuulilaahi waxa la yiri timirta qaado ka sadaqayso markaasuu wuxuu yiri ala afqara minni ya rasuulallah oo ma cid aniga iga baahi badan baan ku sadaqaysa fa wallahi ma bayna laabatayha ahlu baytin afqar min ahli bayti ilaahi baan ku dhaartay magaalada madiina kuma ba noolaba yiri qoys ka baahi badan qoyskayga marka dambiishan anigaaba cid iga mudan ma jirto ani reerkayga nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu muusooday oo dhoo la cadeeyay wuxuu yiri waa reerkaaga ku sadaqaysa rasuulku sallallahu alayhi wasallam bay reerkaaga unsi ninka isaga markii uu wax walba waayay nabigu ma dhihin salawaatu rabbi wasalaam alayhi waa dayn korko ka saaran xilligaad awoodo bixi lama dhihin waa marka labaad ee waxoogaagii lagu caawiyay markii uu yiri reerkayga u baahana waxa la reerkaaga siisaa leeyay wax dambana looma sii raacanin sidaas daraadeed halkaas ay arintaasi ku egtahay wax dayn oo sii soconaysana ma jirto ay culimada qaar kood mareen waana madhabka xanaabilada iyo qowl kamida aqwaasha shaafiiciyada waxaana dooranaya culimo fara badan sidaasaana xoog badan marka la fiiriyo xagga daliilka daahirka wax weeyaan ninka wax lagu laasimiyo ee dayn qoorta laga saaro daliil khaas ay u baahanta mar hadii nabigu basaari waay adiga maxaad u saari faraha ka qaad taasaad moodaa inay masaladu xoog badan tahay wasa khilaafiyo way su'aasha qaybteeda saddexaad oo haweeneyda ayada galmada lagu sameeyay iyadoo sooman ayadana kafaara ma laga rabaa mise maya waan kala qaadaynaa iyada waxaan u kala qaadaynaa mukraha iyo mutaawica in la qasbay oo xoog wax lagaga qaatay hadday taas tahay kafaara in lagu yeesho iska badaay soonkeedii bayba wadan kartaayo ka jabi maayay culimadu qabaan qaar kamid kafaara meelba iska dhig
لأن شريعتنا إكراه إيا قصبكو مربا دي روح الله قصبه دنبي ماله صوما تاسوا هذي مكرهات هاي ونينكو وقصبه حوق وحكا قات حالة اللباد وأنا مطاوعته وي أوغوش هاي واحد يدا أبو أوغولاتي وعودي كرتبا إنه يدا هوشو باللودين وابسك سوروه بكرتا صوما ويدو نينكا واي فرقات قادك كو باللودين واسكا دحي كرتا ومطاوعة مركا رالي بيت مركا يدا أبا لإسكو خلافسين هي كفارة ما لغو ليه مثال لغو ملاها halkaasay culimadu isku khilaafayaan sida saxiixa ah ee xoog badan wax weeyaan inaan waxba lagu lahayn saasa xoog badan inaan iyada wax kafaara lagu lahayn waa madhabka Imam Shaafici alayhi rahmatullah Ahmad ibn Hanbal ba isaguna sida qaba inaan wax kafaara lagu lahayn riwaaya canhu waaye طيب sababtuna waxa weeyaan nabigu salawaatu rabbi wa salaam alayhi ninkii xaaskiisa u galmoodeen hadda ka soo waramayni arintii markuu nabiga u leeyimay sallallahu alayhi wasallam oo weydiiyay rasuulku isaga umbu kafaara saaray isaga baa la yiri kafaara bixi xaaskiisii lama soo qaadinba ya shariic ma waxba ka qarsoomay marka ma waxba kama qarsoomin laakiin wixii looga aamusay baa looga aamusay mar haddii shariic uu ka aamusay oo kafaara uu san saarin in kafaara la saaro daliil kale u baahan tahay marka ومسألة لبعض أصل هو براءة الذمة أصل هو حويدتك إن أنقرتوض وحلا صار إلا بدليل دليل مسألة خاصة عدنا مشرو مسألة سنة وحي أبضن تهاي أو حق بدن تهاي سيدا ماذا كم شافعي ويهي ويه إن هوين إذا قال ماذا كقيب الشيء أما اللي سميه إن أيضا كفارة لقول هاي هذا حتى مطاوعتها هاي مسألة سينا دنكاسات مدة إنه يحوق بدن تهي والله أعلم. سائل كان وحول الشيخ هدي مال رمضان عن قفل لا دقالمو ولي بين الدقال ككهر أن آدي سعينه صون كيجو ما شبيا. صون هرت محل إذا هذا صون كالصحة الشرعي وامدكم نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب من الأكل والشرب صونكم معها إناد إسكديس عنتدي عبيتانك إنما الصيام من اللغو والرفث صون وحليل هذا أفحمضة يطلق حمضة إناد إسكديس صون ليل هذا سيداس دراديد أضو صومان إناد عيتنتو وخلط هدي لغولات دقالمو لغولا عيتمو لغو بلابو لغو قرد الرئيست هكا جوابي وحتى هذا وان صومنا نبي جينا سيدا يدي صلوات رب السلام عليه أحاديث فربضنا ويقصوا قمتها المسألة ده ووحى كم إذا حديث كالصحيحين ككوي من حديث أبي هريرة والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم مركو هذا مالك ومتكين صوميه فلا يرفث ولا يجهل أفحما يسنكوك عن لقن حمنا يسنكوك عن فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم هدي الروح لعيتمه أما أولاد دقالمه هاي لهذا أروان صومنا هاي وان صومنا هاي مركا آذن صومنين عدك عيدة أما كو واحد قذبتا أما حمان كو قصة ميس انتو كويري إن لا أكبات قصة مين كرتا صومه inaad ka siyaadisaan la ogolayn inaad ka fiicnaatood iska daysana way ka si fiicanta laakiin yani almujaazatu bilmithli way banaan tahay markaadan soomanayn laakiin markaad sooman tahay ruuxa ku caayay ee kugu xad gudbay uma jawaabi kartid waa inaad soonkaaga ilaashato waa hadaad ilaashan weydo caytanto dagaalanto sida ninkani sheegayo kale maxaa dhacaya waxa dhacaya soonkaagii ayaad ajirkiisii ama wada waay ama qaar kamidaad waay sida loo badan yahay soonku ma burin oo soo qalee hadda lagu dhihi maayo laakiin waxa laga hadlayo waa ajirkaad ka heli lahayd يا وحين تلك بعد كهلي دون تامي سحوبة كهلي ميس وأنا النبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم مرك أولي من لم يدع قول الزور والعمل به
beenta iyo hadal xumada iyo af xumada iyo dhaqan xumada ruuxan isaga tagin ilaahay tabaaraka wa tacaala waxba ku fali maayo xaaje iyo danna kama leh inuu oomo oo gaajoodo soonkaagu waa soon marka aan nuxur lahayn ajirna ka heli maysid masalada waa burahayaa iyo ma burayo iyo hala soo qaleeyo iyo mas'alo kale waa laakiin meesha waxa ka muuqata soonkaagii khatar buu galay raasamaalkaaga marka ilaasho ha caytami hana dagaalami isaga carar wallahu a'lam سائلكم وحوليه السلام عليكم شيخ محمد سيديبا لوغو سومي كرا ودمدا ان قرخدو u dhicin ama habeenku aanu kala go'in بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد مسألة كسابسا ودمدا أن قرحدو udhicin ama ayna u soo bixin labada way dhacdaa waa mas'alo saayisha kamida nawaasisha casriga kamid tahay culimaduna way ka hadleen waxaana loo badan yahay in ay habeenkii iyo maalintii qadarayaan maadaama qorrax u soo baxaysa oo u dhacaysa ayna jirin qiyaas iyo qadarid bay ku soconayaan waxaana arrinka laga qaatay xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu ka warramay inuu dajaal imaan doono dhulka wuxuu joogi doonaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam 40 maalmood 40 maalmood maalin kamida sanad bay la egta maalin kamidana bil bay la egta maalin kamidana usbuuc bay la egta maalmaha intooda kalena waa maalmaheenoo kale waay sida markuu nabigu ugu sheegay sallallahu alayhi wasallam bay saxaabadu waxay yiraahdeen rasuul ilaahay fadhalika al-yawm alladhi kasana atakfina fihi salatu yawm maalinka sanadka u dhigma ee sanadkoo kale ah hal maalin salaadii ma nagu filanta hal maalin oo maalmaha nagoo kale ah shantii salaadood in tukan jirnay miyaan tukanayna ma nagu filanta bise seen yeela markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la uqduru lahu qadrahu nabi sallallahu alayhi wasallam ma qadarkiisa u qadara qiyaasa يعني maalin walba intay ahaan jirtay qiyaas salaadiina salaad walba waqtigeedii qiyaas sida qiyaastaas ku tukado maalin walba iyo habeen walba 5 salaadood habeenkii iyo maalintii intuu dhigmi jirtay 5 salaadood tukada haddana habeenkii iyo maalintii intuu dhigmi jirtay 5 salaadood tukada u qadara buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiidkaas marka laga qaatay oo waxay leeyihiin taas oo kale u dhigantaayo waa meel aan qorraxi ku jirin habeen iyo maalin ayna ka jir ama habeen isku bixisa ama waa meel isku bixisa marka waxay leeyihiin qad qiyaastaas ay ku socorayaan kadib ay culimadu waxay isku khilaafeen xagee looga qiyaas qaadanaya oo ay muxuu ahaayay halbeeg ka dhiganaya qaar waxay leeyihiin dhowr madhab ay isku khilaaf qaar waxay leeyihiin wadamada mu'tadilka ah sidoo kale u dhaqmayaan oo 24 saac bay laba qaybood u qaybinayaan 12 maalin bay ugu talagalayaan 12 habeen bay ugu talagalayaan 12 ka saac ay u qaybiyeen bay salaadihii marka yay waqtiyadoodii ka dhex qorsheynayaan ra'yigaas way ra'yi labaad waxay leeyihiin waxay wax ku qiyaasanayaan Makka iyo Madiina oo mahbatul wahyi ah ra'yigaana culimada qaar baa ra'yina wuxuu leeyahay ma waxay ku qiyaasanayaan oo taqdiirkooda ku saleynayaan wadan qorraxi u soo baxdo u dhacdo midka ugu dhow iyaga ka ugu sokeeyay iyaga ugu xiga laana meesha looga qiyaas qaadan karo ugu dhow waa iyada ra'yigaasayna rajaxayaan culimo fara badan oo kamid yahay lajna daa'ima iyo culimo badan ay rajaxayaan Sheikh Ibn Uthaymeen iyo waxay leeyihiin aqrabu al-aqwal ila as-sihha wa ka isaga
laana juqraafi ahaan baladka ugu dhow baa waqtigooduna ugu dhow yahay marka meesha ugu sokaysay qorraxdu u soo baxdo ee ay u dhacdo meeshaasay ku bees garaynayaan waqtigee ay soonka bilaabaan waqtigee salaadaha tukadaan ayagaas oo kale la soconayaan macna ra'yigaas ugu xoog badan uguna dhow sawaabka ugu dhow masaladuna masala khilaafiya way wallahu a'lam taa waxa ka gedisan oo xusud iyo xusuusin mudan haddii wadanku ay qorraxi u soo baxdo u dhacdo ama waqtigeedu ha dheeraado ama ha gaabnaado ayagu qorraxdoodaas ay wax ku saleynayaan salaadaha iyo soonka labadaba cibaadaadka xataa qorraxdoodu haday 3 saac ama 2 saac soo jeedo iyadaas ay wax ku saleynayaan marba haday qorrax dhacaysa oo soo baxaysa ay jirto ha dheeraato ha gaabato qoladaas qorraxdooday raacayaan ee qolada meel kale aadayso uga qiyaas qaadanayso kaga hadalay masalada hore waa dadka aan qorraxi u soo bixin oo habeen uun ku jira ama meehe mar walba qorraxdii taaganto habeen baan helin qolada way qolada hore laakiin qolada qorraxi u soo baxayso iyagu qorraxdooda wax ku qaybsanayaan ha dheeraato ha gaabato haday dhacdo marka inay qorraxdu dheer tahay oo saacaduhu dheer yihiin oo dadka qaar kood soomi waayaan ama ku xanuunsadaan ama awood u waayaan marka waxay gelaysaa shariicada qaybteedii taysiirka ay gelaysaa ma ja'ala alaykum fi diini min haraj la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ruuxi kari waayo iska afuri hadhow markuu waqtigu gaabtana uu qaleynay wallahu a'lam wuxuu saayidkan leeyahay sheekh waxaan ku jiraa i'tikaafka 10ka dambe ee bisha Ramadaan ma isticmaali karaa social media sida Facebook ama WhatsApp-ka i'tikaafkayga wax ma u dhimayaa horta i'tikaaf maxaa la yiraahdaa isweydiin leh i'tikaafka waxa la yiraahdaa habsu nafsi ala ta'ati Allah wa dhikrihi wa inuu ruuxu naftiisa oo ku xabiso jeel geliyo naftiisa u celiyo ilaahi taacadiisa iyo dhikrigiisa inuu nafta ku xabiso وقطعه عن نفسه كل شاغل يشغله عنه إنه نفتيس كجويو وحكست أو مشغولينه وإلهي طاعتي سي ذكرك كمشغولينه سيدا سمرك وحنقونا يا روح تشركي سي قلبك سي بالروح اتكافي وهمي كلا عن لهين إلهي وحرال لقليا طاعتي سا عبادة ابن القيم عليه رحمة الله وحوليه هي كتاب كيس لطائف المعارف ومعنى الاعتكاف وحقيقته اعتكاف كمعنيه سي حقيقة سوحوي قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق وإن الحرير كأوجيسو مخلوقات كودن كدبنا حرير كاو كحرمو إلهي خدمة ديسية أذيك ديسية عبادة ديس مركا واحد ماشى أوصل كشيء إن الدنيا دي كسوقول سوق دي كسوقول حتى قريجاجي المهاجي يعني لقوا أقولين لا سيارة روح نوصل إلى صوب وقتان لقوا أقولين ماشى واحد أوجا شيء علشان الدنيا دي وان إسكسوح الحري خلوه وياه إلهي طاعدي سان لا خلووني ولا كعد ليساني معناها مركو اعتكافكو يا هي wax kasto qasay lama ogola marka la iska haasawo la iska sheekaysto muxuu ahaay hatta iska badaf social media u kaadi inaad muxuu ahaay intaad iska fadhiisataan iska sheekaysataan oo maadana la iska haasawo la iska qosqoslo la iska maadmaadsado ma haadir maad banaanka iska joogti maadanaha iska qabsatay waxaad meeshan ugu soo xarootay waa macna khaas sidaas daraadeed social media in i'tikaafka lagu isticmaalo ma burinayo i'tikaafka laakiin shaki ma laha inuu ajirka wax badan u geysanayo sababta waqti badan baa kaaga baxay yani internetka aad ku jirto Facebook aad galayso Twitter-ka waxyaalahan aad ku dhex jirto talabaad weeyaan social media markaad gasho wax muharraba inay ishaadu ku dhacayso shaki kuma jiro iyadoo mas'ala kale yani dib u geysanayso sidaas daraadeed meesha intaad ku jirto waxaan daruuri ahayn oo qasab ahayn oo laga maarmaan aan ahayn oo dhan waa inaad iska xidhowaa saas daraadeed baa culimada qaar kood waxay leeyihiin karaaha ku jirto ugu yaraan waxaase aan dib lahayn wixii hadal ah ee badnayn sheeka aan badnayn
xaajo yaroon badnayn oo ruuxu maalan aan cibaadadii ka mashquulinaynin wuu geli karaa oo waxaa ku tusaya nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidkii safiya bintu xuyay waxay tidhi nebigu sal alla alay wasalam wuu ictikaafsanaa markaasaa nebiga u imid sal alla alay wasalam habeennimo anoo booqashiyo ziyaaro ugu imid waa xaaskiisa faxadatuhu markaasaa nebiga u sheekeeyey bay tiri yacni waxoogaa baa nebiga la fadhiyey oon la sheekaysanayoon u sheekaynahay uma qumtu fanqalabtu markaasaan istaagay si aan u laabto bay tiri markaa nebiga muddo la fadhiyo oon la sheekaystay baan noqday markaasuu nebigu istaagay si uu ii sagootiyo oo yacni waxa way iiga saaro masaajidka marka waa marka ay iyadoo nebigu sii bixinayo ay laba ninee saxaabiya arkayaanay cagta xadayaane waxoogaa ay yaro la xaadsanayaane uu leeyahy calaa rislikumaa innahaa safiya iska tartiibsada waa xaaskaygii safiya ee markuu nebigu leeyahay sal alla alay wasalam marka waxaa ka muuqda nebigoo ictikaafsan xaaskii safiya usoo gashay wuu la yara sheekaystay kadibna way gadoonto way noqoto sheeko yaroo marka aan waxoogaa ama ruux markuu yaro daalo ku yaro nasanayo mushkilo ma leh laakiin waqtigaaga inaad social media geliso meesha umaadan fadhiisanin waa in la iska yareeya howlaha noocaas oo kale ah wallahu aclam assalaamu calaykum miyay sugan tahay in la koryeelayo xijaabka u dhexeeya allah iyo addoommadiisa waqtiga afurka ma arkin wax xadiisoo macnaha sheegay mal xadiista nabiga ka sugan sal alla alay wasalam waxay tilmaamaysaa in xijaabka alle iyo addoommadiisa u dhexeeya haddii la faydo inayba makhluuqaadku gubanayaan oo shiilmayaanoo waxba ka soo hadhayn waxaa tilmaamaya xadiidka fii saxiixi muslim wagayrihi min xadiidi abi muusa alashcari nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam markuu alle ka warramayay xijaabuhu nnuur wa fii riwaayatin xijaabuhu nnaar low kashafahu la axraqat subuxaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi allah iyo addoommadiisa waxa kala xijaaba ee u dhaxeeya waa nuur waa iftiin ama waa naar yaa ilaahay iyo addoommadiisa u dhaxaysa hadduu ilaahay xijaabkaa faydi lahaa wejigiisa dhalaalka ka baxaya iyo iftiinka ka soo baxaya wuxuu gubi lahaa oo shiili lahaa shay kasta oo uu araggiisu gaadho oo makhluuqiisa ka mida yacni lama xamili karo ilaahay tabaaraka wa tacaala makhluuqa abuurka hadda saan u abuurannahay allah tabaaraka wa tacaala inaan aragno ama daawanno ma xamili karno laakiin aakhare marka la tago abuur cusub oo kan ka gedisan baa laysku abuuraya oo aan xamili karno ku raaxaysanayno ilaahay daawashadiisa marka ilaahay xijaabka u dhaxeeyay addoommadiisa oo nuurka ah haddii la faydo makhluuqu waaba gubanayaanba ma xamili karaan xadiidka saxiixa nabiga ka sugan ka isaga waa marka la afuraya xijaabka la faydaya hadii warkaasi xadiis sheegaya ma aanan arkin bal xadiidka nabiga sugan ee saxiix muslimka ka aan sheegnaya toos buu uga hor imaanaya marka wax jira inay tahay lama aha wallahu a'lam saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh maalin soon ah ayaan safar ka soo laabtay waana afurnaa waxaan guriga imid xaaskayga oo markaa daahir noqotay iyaduna de afurnayd mudana waa kala maqnayn waan isbarakaysanay galmadaas aan maalin soon ah samaynay dambi ma ku leenahay ma iska wata hawshiina dhimo maadaama aad sharcan shareecadu ulumadiina waa idiin ogolaatay inaad afurtaan ninkana safar buu ka yimid oo shareecada u ogolaatay inuu afuro islaantana shareecada u ogolaato caaday qabtay labaduba maadaama ay si sharciga ku afuran yihiin wixii shareecadu u fasaxday way samayn karaan cuntadii bay cunayaan cabitaankooday wadanayaan waa isu galmoonayaan wax mushkila ama leh wax dambiya kama soo gaadhayo sidaasay culimmadu leeyihiin wallahu aclam waxa uu saa'ilkan leeyahay sheekh maalintii uu soonku bilaabanayay ma aanan soomin oo bishii ma arkin wax noo sheegana ma helin marka maalintaas ma soo qallaynayaa mise cudurdaar baan leenahay dhinac cudurdaar baad ka leedihiin
dhinacna qallaa laydinka raba dhinac cudurdaar baad ka leedihiinoo haddaydaan ogaanin bishii inay dhalatay wax idiin sheegana aydaan helin inaad afurnaydeen dembi idinka soo gaadhi maayo cudurdaar baad dankaa ka leedihiin lianna dembigu wuxuu yimaadaa bacda alcilmi marba hadduu ruuxuusan shayga ogeyn waa waxyaalaha ilaahay ummadda nebi maxamed uu ka kor qaaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dhanka kale oo aydaan cudurdaarka lahayn wax weeyaan waa dhanka qallaha maalinkii idin dhaaftay waad soo qallaynaysaan leanna wax weeyaan waa maalin ramadaan ahayd aad rumaysan tahay inay ramadaan ahayd ku dhaaftay qallaa waajib kugu ah waa inaad soo celiso laakiin haddii aad maalinka dhexdiisa ogaatay in dadkii soomeen oo ramadaanta haddaad maalinimada ogaatay inaad iska sii cunto ma ahee markaa aad ogaatay inaad soonka bilowdo waa inaad markaa aad ogaatay aad joojiso cuntada ilaa qorraxdu ka dhacayso waxaa laga qaadanayaa xadiidka fi saxiix ku yimid soonka ramadaan intaan la waajibinin waxaa waajib ahayd in la soomo yowmu caashuuraa cala saxiix sida xadiista laga qaadanayo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi subaxa ka mid ah wuxuu yidhi ruuxii wax cunay inta waagu baryay maalinka inta soo hadhay yuusan wax cunin ruuxii aan waxba cuninna ha soomo oo maanta ha soomo marka dadkii subaxnimadii wax cunay aan la soconin inay maanta caashuuro tahay nebigu wuxuu amar ku siiyey sal alla alay wasalam maalinka inta dhiman soomanaada saas daraaddeed marka ogaanshaheeda aad ogaato cilmigeedu ku soo gaadho maalinta xilligay dooni ha ka ahaatee ayaa la rabaa inaad af haysato ayib haddaan sidaas sameeyo maalinkaasi ma ii jiraa bacdu ahlilcilmi way qabaan xaafid ibnu xajar fatxulbaarigu ku taqriiriyey bacdu ahlilcilmi baa qabo intaasaa ilaahay addoonkan ku kallifay waa intuu ogaaday markuu ka war helay saas daraaddeed maalinkaas laguma leh qaarna waxay leeyihiin waa sida culimmadu u badan yihiine maya ee maalinkaas inta laabanna waa inuu af haysto soomanaado maalinkaana waa inuu soo qalleeyo maxaa yeelay ma jiro soon maalin haafkeeda ma jiro soonku waa maalin dhammaystiran maalin qaar ka mida oo soon ah ma jirtay leeyihin waa midda labaadee niyadii rukniga ahayd ee laga maarmaanka ahaydna habeenkii ma soo niyoonin sidaas daraaddeed soonkaas maalinkaa waad soo qallan bay jumhuurtu qabaan waa mas'ale farciya wey almuhim xilliga ay ku soo gaadho inay ramadaan tahay wixii ka dambeeya waa inaad maalintaa af haysato wey maalinkaasi ma xisaabsan yahay mise kuma xisaabsana waa masale kaloo khilaafiya wey wallahu aclam saa'ilkan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekh ma bannaan tahay in zakaatulfitriga lagu bixiyo lacag mas'aladu waa khilaafiyo wey sida axaadiista nabiga ku soo aroortay sal alla alay wasalamna waa cunto in la bixiyo waana sida ay qabaan jamaahiiru ahlilcilmi waay maalikiyada shaaficiyada iyo xanaabilada iyo in badan oo ka mida muxadisiinta waxay leeyihiin qiimo iyo lacag zakaatulfitriga laguma bixin karo maxaa yeelay nebigu sal alla alay wasalam marka uu leeyahay cunto ha la bixiyo ama xilligiisii cunto la bixin jiray lacagtu way jirtay waana la isticmaali jiray sabab baa jirta marka lacagta looga leexday oo cunto loo aaday xikma ku jirta saas daraaddeed ninkii lacag ku bixiyey zakaatulfitrigii kama bixin bay qabaan culimmada badankood waxaa nebigu ku cileeyey sal alla alay wasalam markuu ka hadlayay zakaatulfitriga wuxuu ku cileeyey tuhratun lisaa'im wa tucma lilmasaakiin dadkii soomanaana soonkoodii bay daahirinaysaa iyagii bay daahirinaysaa oo nadiifinaysaa sadaqadan zakaatulfitriga waa marka labaad ee masaakiintana quud bay u tahay tucma waa quudin waa cunto waa wax la cuno sidaas daraaddeed ayaa waxaa raajixa inayna lacagta ku baxaynin ayib
waxaa kaloo culimmada qaarkood ku cileeyaan sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kaleetii ay ku daraan waxay leeyihiin haddii lacag laga dhigo la yidhaahdo sakaatulfitriga lacag ha lagu bixiyo waxay u badan tahay inay gasho dad aan mudnayn gacantooda oo taajiriintii baaba qaadanayta soo ma 2 kiilo badh oo bariisa nin waxoogaa haysta lacaga kaa qaadan maayo laakiin yaa qaadan yaa miskiin baa qaadan laakiin wixii aad ku soo iibisay oo dhowr boqol oo shilin ah haddaad tiraahdo waan qaybinayaa taajirku xataa gacantu hoorsana soo ma ilaa lacagta nin walba uu qaataa soo ma waxaa kaleeto uu ku darayaa waxay keenaysaa in lacag uun la bixiyo inay qarsoonto shaciiradan yani calaamadan muuqata ee zakaatulfitriga oo la bixinayo dukaamadii hortoodii masaakiintii oo qaadanaysa waa muuqaal shariicadu rabto waa haddii la yiraahdo lacag ha la isu dhidhiibo hoosta ha la isaga dhidhiibana muuqaalkaasi sharciga ee shaciiradii way qarsoomaysaa buu leeyahay waxaa ixtiyaadkiiyo dadaalku marka keenaya in lagu ekaado in raashin la bixiyo ama cidii ay la xoog badnaato madhabka kale waa madhab Abu Hanifa in lacag ay ku bixi karto oo masalada diin ahaan intuu u baaro ku qanca ama madhabka Hanifiga ba culimadiisa iyo dadka haystaba ayagu sida haday ku qanacsan yihiin waa mas'ala khilaafiyo oo ruuxa qaabkii sidii la rajaxantaay haduu ku dhaqmaay masaa'isha yani wax way fiiha saca wax mushkila amale laakiin min haythu dalil waxa xoog badan zakatul fitrigu kuma baxayso lacag kuma baxdo ee raashin bay ku baxdaa waxa xusid mudan inaan baraarujino markaan leenahay lacag kuma baxdo macnaheedu waxa weeyaan in masaakiintii lacag la siiyayna ku baxaynin waxa ka gedisan haduu ruuxu lacagta soo dirsado oo raashin lagu iibiyo wakiil intuu samaysto raashin lagu gado oo masaakiintii sida lagu siiyo ruuxaasi lacag ma bixinin raashin buu bixiyay waana dadka qurbaha jooga wadamadaasi aan masaakiin raashin qaadanaysa laga helaynin sida ay zakatul fitriga ku bixinayaan waa inay lacagta soo diraan meelaha masaakiinta joogta u soo diraan raashin lagu iibiyo sidaana zakatul fitriga lagu bixiyo wallahu a'lam saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh dumarka ma loo ogol yahay in masaajidka ku i'tikaafaan waxa diidaya ma jiraha waa loo ogol yahay in i'tikaafaan waqtigii nabiga i'tikaaf jiray sallallahu alayhi wasallam kama fi sahih nabiga sallallahu alayhi wasallam kii masaajidka khaymada ka dhistay soo ugu i'tikaaf kadibna dumarkiisii mid kamid ah yaa agtiisa khaymad ka soo dhisatay yadan kuwii kala markay arkeen bay iyaguna khaymada soo dhisteen xilliga nabigu i'tikaafka gal rabay wuxuu arkay khaymadiisii iyo teendhadiisii agagaarkeeda teendhooyin yar yar oo ka dhisay markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam al birra turidna ya ma khayr doon baatihin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam yani wuxuu ka fahmay inay waxoogaa isu masayrsan yihiin hawshii dumarku meesha soo gashay nabigu sallallahu alayhi wasallam teendhadiisiiba waa fujiyeyba يعني سنة كاعتكاف كيبا وكتك مركاسو شوال بلوغيدو اعتكاف كيسي كدغت النبي صلى الله عليه وسلم مركو اعتكاف جيره waxa kale tilmaamay xadiidka fi sahihayn min hadith Aisha oo ilaahay كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كدب بشهر رمضان واعتكاف جيري إلى إلهي تيسي uga oo ka geeriyooday isagu markuu dhintay kadibna xaasaskiisa waa i'tikaaf nabiga sallallahu alayhi wasallam marka waa mas'ala ittifaaqa waa mas'alo dumarku inay masaajidda ku i'tikaafi karaan ishkaal male طيب laakiin culimadu shuruud bay u dhigaano laga qaadanayo adilla kale shuruudda waxa kamida meeshay ku i'tikaafayaan waa inay tameel dumarka khaas ah oo raggu aynan arkaynin rag iyo dumarku ayna isdhexgalaynin shardiga labaad waxa weeyaan waa inay nafteeda aamin uga tahay fitno haddii ay fitna ka baqdo iyo diinteedii iyo akhlaaqdeedii inay wax soo gaadhaan markaasi waa inay gurigeeda ku ekaato shardiga saddexaad waxay leeyihiin i'tikaafkeeda waa inaysan ka dhalanaynin inay dayacmaan xuquuq inay dayacanto lagu lahaa maxaa kamid ah mesela xaqi ninkeeda xaqi caruurta xaqi guriga hadii guri leedahay
xuquuq kaloo waajib ku ahayd waa inayna ka dhalanaynin inuu ictikaafku lumiyo oo markaa iyadana looma ogola ayib shardi afraad waxay u taallaa haweenayda nin kale ee la qabo shardigaasina waxa weeye waa inuu ninkeedu u idmo u ogolaado hadduusan ninkeedu ogolaanin ma ictikaafi karto sababtu maxay tahay ictikaafku waa sunno ninka taacadiisuna waa waajib sunno iyo waajibna waajibka horeeya tii soontay ee soonka sunnaha soontay yuuba ka jabiyeyba soo maa ayadoo u sooman intuu yimid ayuu ayar dantiisa ka dhammaystay markay dacwooto tii rasuul ilaahi oo soonku iga jabiyaa iyadaa lagu yidhi ninkaagoo jooga ha soomin ilaa inuu kuu idmo mooyaane marka sunanku sidaas ilaana xaqiisii baa meesha ka baxay soo maa saas daraaddeed hadday nin leedahay waa inay ninkeeda idankiisa haysato haddayna haysanin ma ictikaafi karto shuruudaha haddii la helo laa maanica way ictikaafi karaan wallahu aclam su-aashan waxay ku saabsan tahay laba qof oo isqabo xeeladaysanaya wuxuu leeyahay saa'ilka sheekh maalin ramadaan ayaa aniga iyo xaaskayga isku baahanay kadibna waxaan ku heshiinay inaan soonka iska furno markaan wax cunno kadibna inaan jamaac samayno marka xukunkeenu muxuu noqonayaa annaga oo sooman iskuma aanan galmoon وهذا المحوينكي وكو ديقوا حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن حبينكي بابا اللي سوكين في صحيح محاكي يعني مالك ناس صحي على ستانو يصدوا دومتا أرنتاسي وأرنت الله يقانو التحايل في إسقاط حكم شرعي إنه الروح أحيا لديستو si uu xukun sharciya meesha uga saaro u rido hadduu toos soonka ugu jabin lahaa galmada soo kafaara kuma waajibtay kafaaradii baa marka laga dhuumanaya laga xeeladaysanaya marka biyaa la cabbi cuntaa la cuni soonkii waa jabay biyo iyo cuntu ku jabay kafaara male iyagu soo ma hadhowna annagoo afuran baanu hawshanadii qabsannay waay saas daraaddeed kafaara ma nagu waajibaysa arrintaas horta marka koowaad waa taxaayul xeeladaysi shareecada inaad la daba wareegto axkaamteedana lacnad baa ku soo aroortay waa tii yahuud iyo nasaaro loo lacnaday waa tii ay ku timid lacana allahu almuxallila waalmuxallala lah ninka naagta saddexda lagu furay xallilaya iyo ka loo xalilaya waa lacnad ilaahay ku dhacday horta waa dambi aad u weyno kabiira min alkabaa'ir waa lacnad ilaahay baana ka dhalan karta waa mid labaade kafaaradii ma lagu leeyahay ninkaas cuntada ama cabitaanka ku jabiyay si uu galmo u sameeyo kafaaradana meesha uga saaro ها علماء قار كم إذا وحيليه لقمة له لكن سيدا صحيحة علماء بدنا التقريرين يان كفارة إم وحك السياسة لقمة يشم ويان هرت كفارة كدع ميس وأنا مسألة علماء يقانان المعاملة بنقيض القصد أو يقانان روحوا هدو قصد حن صميو قصد كيسو حما عكس كيسا لقولا رقما وحين كيني كرتا أرمها النوع وكلا إن الشريعة أحكام تيدا إن بدن وكلام بربريسو ابن القيم عليه رحمة الله كتاب كيس قيم إعلام الموقعين عن رب العالمين مركو كهل لي حيل كمركو كهل لي يعني عنوان وحو كيني ويري إبطال حيلة لإسقاط الكفارة هل كاسو مسألة كهل لي مسألة لفت يدو كيني نين عبيتان سمي أما عنطعني أما خمر عبي كدب نقل الموضي كفارة مكو واجبيس ابن القيم عليه رحمة الله الضوء بضنبو مسألة كقلي وحون التقريري إن أي لازم تهي إن كفارة الله صار حتى يسقوا بيه يعنتقوا أفري لكن حقين له السعودي واي يا مقصودكم بيه يعنتضوه حقين له السعودي waxaa loo socday galmada loo socday waxaa dan ujeedadu ahayd in kafaarada meesha laga saaro saas daraadeed wuxuu leeyahay in laga fududeeyo ma ahee marka maqaasida shariicada la fiiriyo waa in lagu sii adkeeyo isagoo kale
maxaa yeelay haddii qaabkaa la sameeyo kafaaraba waajibi mayso kafaaro dhan baaba meesha ka bixiyo nin kastoo raba inuu kafaarada ka cararaba marka hore intuu wax soo cuno ama wax soo cabuba hawshiisa dhammaysanba sidaas daraaddeed jid waxaaba furmiba kafaaradii shareecadii xukunkii sharciga oo dhanba lagu baabi'inayaaba dadkii loo furayaa buu sidaas daraaddeed min baabi saddi daraa'ic riddaasi loo xidho waa xiyalka xeeladaysiga shareecada axkaamteeda si loo baabiyo loo xeeladaysanayana meesha looga saaro waa in kafaarada lagu laazimiyo saasaa xoog badan buu leeyahay dood badan buu meesha ka galay dadii doontana way u noqon kartaa ilaamul muwaqqi'in can rabbil caalamiin sidaasaana shareecada maqaasideeda iyo ujeedooyinkeeda u dhow in ruuxaasi kafaaradii lagu yeesho qallihiina laga rabo lacnadina ku raacdo uu lacnada khatar u galo intaasaa isu raacaysa marka waxaa kuu dhaanta intii aad wareeggaa iyo laalaabkaa soo geli lahayd adeer toos hawsha u qabo yaa kafaaradana toos u qaado dembigii ku raacaya ha ku raac laakiin dunuubtaa kala fudud marka ninkaas kafaaro waa lagu leeyahay cala saxiix kafaaradii waa laga rabaa dembi weynna waa u dheeryahay weliba dunuub badan fara badan oon hal mid ahayn wallahu aclam assalaamu calaykum sheekh salaatu leylka dhexdiisa af soomaali ma ku ducaysan karaa maadaama aanan garanayn afka carabiga mas'alada horaan uga soo hadalnay isla waxay ku timid barnaamijkeennan waxaan u malayn 2 goor weliba inay soo noqotay oo markii saddexaad baan filayaa salaada dhexdeeda luqadan carabi ahayn ma lagu ducaysan karaa saddex madhab ay culimadu qabaan mid waxay leeyihiin maya way diidayn midna wuxuu leeyahay ha si buuxda ama carabi ruuxu ha yaqaan ama yuusan aqoonin luqad kale uu ku ducaysan karaa madhabna wuxuu leeyahay maya ruuxu hadduusan carabiga aqoonin ducooyinka luqadda carabigana uusan garanaynin kaas waa loo ogol yahay inuu salaada dhexdeeda luqaddu garanayo ku ducaysto ruuxii carabiga garanaya iyo adkaartii carabiga ahaydna kaas looma ogola oo isagu kuma ducaysan kara waa inuu adkaarta carabiga ah ducooyinka carabiga ku ducaysto madhabkaas wuxuu kala qaadayaa ruuxii carabiga garanayay iyo ruuxii aan garanaynin buu kala qaadaya ka garanaya looma ogola kan garanaynin waa loo ogol yahay waana madhabka طائفة من أهل العلم الإمام الشافعي كمية علي رحمة الله يا صاحبي أبي حنيفة قار كمية علم بدن بمذهب كقبته وأنا استجع حق بدن استجع حق بدن روحي عن جرانين عربية لو قدوا جرانا إنه الصلاة ده حيث كدوا عيسته ولا أقول هاي حاجية ضرورة كنتي لكن من باب الخروج من الخلاف وحي خلاف قالوا تحدر كإن لقى مرافعا وعبادة لو تحدروا أذكارت عربية أنا الصور مأثور كقرآن كي السنة كنت منا سيدة دبا معناها أي حنبار سنتها هاي لقد كلكم كيني كرت خاصية وضعتها سيدة درادد ويفضل ده هاي إن لبرته إن لو جد دالوا والله أعلم waxaan ku nadaray inaan soomo haddii aan helo muraad aan lahaa alle waa ii sahlay muraadkayga anigoo soomaya nadarkaas ayaa waxaa ii soo gashay bisha ramadaanka kadib halkii ma ka sii wadan karaa soonka nadarka mise waa inaan dib u soo bilaabaa soonkii nadarka soonka nadarku waa laba inaad markii hore shardi ka dhigtay oo nadarka ku gashay soon isku xigoon kala go'go'nayn oo aad tidhi maalan 10 bari oo isku xigtaan soomaya haddaad sidaasi shardi uga dhigtay nadarka markaad gelaysay inaad isku xijisaa laazim kugu noqonaysa haddii aadan ku darin markaad nadarka gelaysay in soonku isku xigahayo haddaadan ku darin laazim ma ah markaa inaad isku xijiso waad isku xijin kartaa waadna kala gogoyn kartaa hadduu marka shardigaagii hore ahaa soon isku xidhiidhsan oon kala gogo'nayn nadarkaagu hadduu ahaa oo adiga oo wada ramadaan kuu soo galay dabcan ramadaan baad markaa soomi kadib soon ramadaan markuu dhammaado miyaad soo bilaabi mise meeshii baad ka sii wadan waay meeshii baad ka sii wadan sababtu waxa weeyaan waxa kaa kala gooyay wax khiyaarkaaga ku yimid ma waa wax shaaric amray oo shariicadu amartay oo alla amray ramadaan soon khiyaarkaaga kumaadan joojinin marka
waxaa la mida maalan ruuxii soonka laasimka ee isku xigay ama kafaaratu dhihaar ama soonka nadarka isku xiga asagoo wada ayaa waxa soo gashay ciid baa soo gashay maalinka ciida uu afuri laana soon lama ogola laakiin markuu ka baxo meeshiisu ka sii wadana waxaa la mid ah haweenaydii iyadoo soonkii nooca ah wada bay caadadii ku dhacday caadadii baa ka jabisay ma soomi karto ma soo bilow baan dhahayna ma meesheedii ba ka sii wadani laana waxaa ka wada dhaxeeya kala gooynta xidhiidhintii ay kala go'day khiyaarkaaga kuma imaanin ruqsad sharciya ama amar sharciya ama nahyi sharciya ku qabsaday markaasoo kale waad kala gooyn kadibna meeshii baad ka sii wadani ninka marka waxaan leenahay ramadaanku markuu dhamaado maalinta ciida ana la tukado ay dhamaato maalinta ku xigtaba waa inaad ka bilowdo soonka intii ku dhimana nadarka ah oo sii wada waa soon sunna ama dhaxgelin karti yani wadaaca ma gelin karti lixda yani shawaal lixda shawaal muxuu ahaay sita shawaal oo sunnada ah gadaal u dhig waa inaad markii ciida laga baxaba maalinka xigaba waa inaad bilowdo maalmihii ku dhimana oo soonkii wada waa wallahu a'lam waxaan galmood sameeyay waqti ramadaan waqtigaas mararna reer baan lahaa marar badanna reer ma lahayn farabadni awgeed ma xusuusan karo inta jeer ay ahayd su'aasheedu waxay tahay hadda waxaan rabaa inaan toobad keeno imise kafaaro gud ayaa layga rabaa aftuuna ma'juuriina jazaakum allahu khayra aljazaa waxaa laga rabaa horta towbadda dambigu intuu doonay ha leekaado ruuxa hadduu si dhaba u toobad keeno ilaahay dunuubta waa dhaafaa in allaha yakfiru dunuuba jamiican markii laga soo laabto wuxuusan dhaafin ma jiro allah tabaaraka watacaala waxaa lagaga baahan yahay toobad dhab oo shuruudeedii wadata inaad la timaado waxaa kaloo lagaga baahan yahay labaad maalmihii aad jabisay in aad dib u qallayso intii aad xusuusato waxaa kaloo lagaga baahan yahay inta goor eed xusuusato inaad soon ku jabisay galmo inta goor eed xusuusato kafaaradeediina waa lagaa rabaa mid walba 2 bilood oo isku xiga haddaad kari weydana bedelkeedii ayaad markaa qaadanaysaa macnaha waxaa horeysa qoor xoreynteed waxaa ku xigta 2 bilood oo soonkooda isku xiga waxaa ku xigta 60 miskiin quudintood marka intaad dib u fikirto maskaxdaada ka shaqaysiiso inaad xusuusan karto isku daydo intaad xusuusato kafaaradeedii waa lagaa rabaa intii aad soon jabisay maalmaha jabisayna qallahoodii waa lagaa rabaa toobadna waa lagaa rabaa intaa waxaa ka soo hadho iyadana lagaaga baahan yahay wixii hadda ka dambeeya inaad hagaagto oo aad weliba badsato soonka sunnaha ah si berri haddaad ilaahay hor tagto xisaabta soonka waajibka ah hadday wax ka qasmaan ka khaldamaan ama wax iska dhimaan casa walacalla inuu ilaahay soonka sunnaha kugu buuxiyaa dhici karta marka soonka sunnahana badso fitankana ka fogow mar laba si aadan meeshii ugu loobanin yani waxa weeyaan seeraha iyo beerta agagaarkeeda ka durug wallahu a'lam assalaamu calaykum sheekh aniga iyo xaaskayga ayaa xilli ramadaan ah faraka ciyaar samaynay wax galmood ah nama dhexmarin laakiin waxa iga yimid biyihii soonkaygiina sidiisii ayaan ku sii watay kadibna waan qalleeyay ma wax kala laygu leeyahay jazaaka allahu khayran وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد روحا دي إسوا صومن وقلم السمية إنه صوم كتشوية والإسلوة فقسين هو إجماع إني كفارة واجبي سنة والإسلوة قولي laakiin haddii uu taataabasho ama dhunkasho ay shahwadu kaga timaado isagoo sooman waa la isku khilaafsan yahay maxaa ku waajibaya sida xooga badan ee saxiixa ah
wax kafaaraa kuma waajibayso laana kafaaradu galmaday ka waajibtaa ee kama waajibto wixii galma aan ahayn sida daahirka xadiidka nabigu uu yahay sallallahu alayhi wasallam inayna kafaara ku waajibaynina waa madhabka asxaabu ra'yi abu xaniifa iyo thawri ayaa laga wadaa al-imaam shaafici axmed ibn hanbal waxaana doortay al-imaam ibn mundir inaan wax kafaara lagu lahayn waxaa daliilu ah الدليل هو عدم الدليل waxaa daliilu ah wax daliiloo waajibinayaan lahaynin taasaa daliilu ah laakiin culimmadu waxay leeyihiin taana taa u gudbin waxaa ku waajibaya qalle oo maalintii uu jabiyey waa inuu soo qalleeyo waana sida uu sameeyey saa'ilku marka qallahaasaa laga rabaa masalada kale baraarujinta mudani waxay tahay hadduu marka horeba ka baqayo inuu biyo ka yimaadaan oo taataabashada ama dhunkashada biyo kaga yimaadaan inuu ka fogaadaa habboon sida ay qabaan jamaahiiru ahlilcilmi maxaa yeelay maadaama ay keeni karto soonka jabidiisa wax kastoo soonka inuu jabo keenaya waa inuu ruuxu ka fogaado wallahu aclam magacaygu waa ridwaan maxamed oo degan dalka Germany xaaskayga oo labadii ramadaan ay u dambeeyay midna uur lahayd midna nuujinaysay hadda markay istiriqaleena ay uur leedahay maxaa ku waajibaya dumarka uur kale iyo dumarka nuujinaya caruurta nuujinaya haddii ay soonku soo galo way iska afuri karaan shariicadu ruqsaysiisay xadiidka Anas ibn Malik al-Ka'bi cinda ahli sunan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ku yiri ilaahay soonka wuxuu ka dajiyay haweenta uur kale iyo midda nuujinaysa marka way iska afuri karaan hadday khatar dareemaana inay waajib ku noqdaan dhici karta afurku ama ilmahaba loo baqo laazim bay ku noqon marka inay afuraan oo inay soomaan baaba waxay noqonaysaa marka ithmi iyo dambi noqonaya ko طيب way afureen maxaa laga rabaa markay afuraan waxaa laga rabaa jumhuur say qabaan culimada badankood say qabaan waxaa laga rabaa wixii ka tagay inay dib ka soo qaleeyaan markay jaanis helaan maalmihii ka tagay ee uurka lahayd ama nuujinaysay waa inay dib ka soo qaleyso kolba sidii u fududaata aw qaleyso taa waa mid haddii ay kari weydo soonkii waa batay sanad way nuujinaysaa sanadna waa uur way dheeraatay way soomi kari weyday maxaan samaynaynaa markaa shareecadan wax uga raadinaynaa oo markaa waxaan leenahay madhab waxaa jira saxaabada qaar ka mida qabeen oo cabdullaahi ibn cabbaas ka asaxay cabdullaahi ibn cumarna ka asaxay alimaam isxaaq ibnu rahawiyana uu ku tegey oo dhahaya cuntay bixinaysaa haweentu markay u afurto ilmaha dartii ama ay u afurto markay uur leedahay ama nuujinayso cuntay bixinaysaabay yay qabaan haddii marka ay kari weydo inay qallayso muddadu ay dheeraato maalmuhu ku bataan oo tabar u weydo marka waxaan leenahay binaa'an calaa madhabi bacdi asaxaaba wa bacdi ala'imma markaa cuntaha bixiso waase goormo waa markay kari weydo inay qallayso soonkuna ku bata waay ruqsadaasi sharciga ah baa markaa loo heli karaayo loo raadin karaa wallahu aclam aabahay baa waxaa ka tegay soonkii lasoo dhaafay xanuun iyo inuu ka jabay lugta bila ka hor soonkii jabka lugtana waxaa keenay kansar ku dhaca kaadihaysta prostate cancer oo jirkiisa ku faafay wuxuuna qaatay dawooyin 3 waqti mana awoodo inuu soomo balse waxa uu rajaynayaa inuu soomo haddii uu caafimaado haddana xaalkiisa waa ka sii daray su-aasheedu waxay tahay xukun ahaan maxay noqonayaan soonka ka tegay xukunkiisa xanuunka dartii xanuunku marka soonka la yiraahdo laba qaybood waay xanuun ruuxa haya oo aan rajo lahayn inuu ka caafimaaday sida loo badinayo bini aadamku intuu garanayo dhakhaatiirta lala tashado hadday yidhaahdaan xanuunkani ma badna in laga caafimaado xanuun waa noocaas
xanuunna rajuu leeyahay oo ruuxu inuu ka caafimaado caadada iyo curfiga bini aadamka way u badan tahay inuu ka caafimaado labadaa xanuun baa loo kala qaadaya xanuunka aan rajada lahayn hadduu ruuxa hayo soomina kari waayo markii soonku soo galo maalin walba hal miskiin buu quudinayaa hal miskiin buu wax ku filan siinayaa oo cuntaa soonkuna kuma laasimayo xanuunka haya ee uu la soomi laayahay hadduu yahay xanuun aan rajo lahayna waxaan u jeedaa hadduu yahay xanuun rajo leh hadduu yahayna wuu iska sugayaa ilaa arrinkiisu ka caddaanayo ayib ruuxii wuu iska sugay xanuunkii waa ku sii batay ma caafimaadin maxaa la samaynayaa waxaa la samaynaya waa la iska sugayaa hadduu sidaa ku dhinto ousan ka soo raynin isagoo soonkii lagu leeyahay aananna caafimaadin waxba laguma laha lagana qallayn maayo raashiinna laga bixin maayo sidaasi waa sida ay qabaan a'immada badankood yacni dadka ama laga qallaynayo ama markuu dhinto raashiinaha laga bixiyo la leeyahay ee soon isagoo lagu leeyahay ku dhintay waa ruuxa soonkii ka tegey jaanisuu ku qalleeyo intuu helay aan qallaynin laakiin ruuxa xanuunsaday xanuun uga tegay xanuunkiina aan kaba kicinba siduu u hayay buu ku tegey waxba laguma le kaa isaga sidaana waxaa qaba alimaamu maalik shaafici abu xaniifa waa ra'yiga jumhuurta waa waxba laguma laha oo ehelkiisuna ka qallayn maayo raashiinna laga bixin maayo laanna wax weeyaan maba awoodinba siduu u sugahayay buu ku tegey waxba laguma laha wallahu aclam